ka gadaal markii uu fashil ku soo dhamaaday shirkii u socday golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka waxa soo taraya baaqyada caalamiga ah ee loo dirayay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha golaha mustaqbalka ah ee iyagu ku shirsanaa xindaabka xalane madaxda iyo sidoo kale safiirada dalalka caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay 48 saac ugu dambeysay ay soo dirayeen baaqyo caalami ah iyaga oo digniino u dirayay dhanka kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya kaasoo loogu digayay in xaaladan kala guurka loo baahan yahay in miiska wada hadalka lagu laabto safiirkii hore ee dalka Turkiga u fadhiyay Soomaaliya ayaa dhankiisa qoraal uu maanta bartiisa Twitter-ka ku qoray waxa uu kaga hadlay xaaladda Soomaaliya iyo sidoo kale muhiimadda ay leedahay in waqtigan kala guurka la helo isbedel dhab ah oo dhanka hoggaanka waxaan kula wadaagi doonaa bayaanka ka soo baxay safiirkii hore ee Turkiga oo si weyn markaasi warbaahinta u qabsaday isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya ay ka falcelisay qaar ka mid ah wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ayaana ka falceliyay iyadoona dhanka kale safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya uu dhankiisa maanta la sheegay in uu si weyn markaasi ugu canaantay kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qadka telefoonka kula hadlay isagoo kala hadlay xaaladda Soomaaliya soo dhaw muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faallada ee comment-iga ku dhiibo haddii aad kamid tahay saaxiibada ku xiran bartanna ku soo biiro hadda kamid noqo hagaaga kadib markii uu fashil ku soo dhamaaday shir qaatay muddo 3 maalmood ah oo xindaabka xalane uga socday madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha golaha mustaqbalka ayaa waxa markaasi maanta bayaan soo saaray isla markaana bartiisa Twitter-ka qoraal ku qoray safiirkii hore ee dawladda Turkiga u fadhin jiray Soomaaliya kaasoo si weyn uga hadlay xaaladda Soomaaliya iyo sidoo kale marxaladan kala guurka sida muhiimka ay u tahay in la helo hoggaan dhab ah oo Soomaaliya markaasi samata bixiya safiirka ayaa qoraalka kooban ee bartiisa ku qoray waxa uu yiri waxa loo baahan yahay in meesha laga saaro madaxweyne Xasan iyo ra'iisul wasaare Xamse lana helo hoggaan waqtigan adag dalka samata bixiya kadib qoraalka safiirka Turkiga uu ku qoray bartiisa Twitter-ka waxa dhankiisa ka jawaabay wasiirka dekedaha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac madaxana furan waxaana uu yiri safiir ma ahan Soomaaliyadan mid yaa taqaanay mana ahan Soomaaliyadan waqtigan tii dhaqaalaha iyo sidoo kale gargaarka la siin jiray waa jawaabta dawladda federaalka Soomaaliya ay ka bixisay hadalka safiirkii hore ee Turkiga Soomaaliya u fadhin jiray xubnaha golaha mustaqbalka iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay shir uga socday xindaabka xalane ayaa shirkooda waxa uu ku soo dhamaaday fashil iyo sidoo kale natiijo la'aan taas oo walaac badan ku abuurtay beesha caalamka iyo sidoo kale guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed oo ka walaacsan mustaqbalka dalka iyo sidoo kale halka uu ku dambeyn doono xaalka dalka Soomaaliya maadaama madaxda waqtigooda uu dhamaaday mucaaradka wali ay hanjabayaan isla markaana madaxweyne Xasan iyo tiimkiisa aysan dheg jalaq u siinaynin guud ahaan wixii ka soo kordhay wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa ku soo birbartan muuqaalkana like saar aragtidaadana qaybta faallada ee comment-iga ku dhiibo sida aad u aragto ma suuragal ma tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi ku soo laabto miiska wada hadalka